gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland mudane Jamaal Caydiid Ibraahin ayaa xaqiijiyay in qiyaas ahaan 140 meel u jirta xeebaha gobolka Saaxil ee dhinaca dalka Yemen ay maalmihii la soo dhaafay ku degtay doon rarneed ganacsato reer Somaliland oo ka soo shiraaqatay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. Gudoomiyaha rugta ganacsigu waxa uu sheegay in doontaasi ay siday rar aad u badan oo qiimahooda lagu qiyaasay lacag ka badan $5 milyan isla markaana ay rarkaasi dhamaantoodba ay mulkiyadooda lahaayeen 8 kamid ah ganacsatada Somaliland oo isugu jira shakhsiyaad iyo shirkado oo kala duwan isagoo sheegay in doontaasi aanay jirin haba yaraatee wax ka badbaaday rarkii ay siday oo isugu jiray gaadiid iyo alaab kale. Gudoomiye Jamaal waxa uu intaasi ku daray in sababta ay doontaasi u degtay ay ahayd dabaylo ku kacay sidoo kalena diyaarado badbaadinta doontan ka howlgalay ayaa soo samata bixiyay badi shaqaalihii la socday doontaasi marka laga reebo 2 shaqaale oo ka soo jeeda dalka Hindiya oo wali la laayahay kulli alaabta saarneedna laga soo iibsaday Imaaraadka ayaa degtay doontaasoo runtii siday u dhantahay u rarneyd ganacsatada reer Somaliland inkastoo ay isku noqonayaan magacyadu haddana tirada guud 80 qof oo ka kooban ama shirkado ama ashxaas ayay u rarneyd qiimeynta xoolihii tirada guud ma hayno laakiin runtii waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi karo in ka badan 5 milyan. mudane Jamaal waxa uu ugu dambeyn sheegay in aanay jirin ka gudi ahaan meel ay u raacaan badeecadahaasi ku degtay xeebaha dalka Yemen ee 140 mayl u jirta xeebaha gobolka Saaxil. inaanu manifeska rasmiga ah helno dhamaanteed ganacsatada wada garanaysan shirkadaha iyo shaqaalaha Somaliland bay u rarneyd doontaasi way degtay waxa wax ka baxay ma jiraan dhibtaas soo korodhay waana challengeska ama caqabadaha runtii ganacsatada reer Somaliland hor yaala had iyo goor la kulma oo doonyahaas iyo maraakiibta inoo yimaadaan intooda badan insured maaha yar maraakiibta yar alaabtaas halka ku dhacantayna meel loo raaco raad dambe oo lagu noqonayaa runtii ma jirto. Xamse Xir Saxid wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa.